بسم الله الرحمن الرحيم تيمكي نتفيق قرنك وأماد علينا runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in walaalkay Cabdiraxmaan uu runtii hanti muddo dheer 73 ayuu sheegay inuu ku biiray wasaaradda gaadiidka u shaqeynayay marka isla wasaaradii oo ka tirsanaa hanti ay leedahay isagoo gacanta ku haya ayaa waxa ku dhacday dawladdii dhexe naga burburtay gaari buu ahaa gaarigaas muddo sii hayay ka bacdina wiil isagu uu dhalo gaariga uga tagay isagu uu safray baa iibiyay lacagtii uu ku iibiyay xilligaas oo la qiimeeyay ayuu maanta soo celiyay wuxuuna ku soo celiyay gacanta dawladda wasaaradda gaadiidka kadibna wasaaradda maaliyadda bangiga dhexe lagu shubay lacag 12,500 runtii waxay ahayd sunno fiican oo ku dayasho mudan ummadda Soomaaliyeedna albaab u furtay sababtu waxa weeyaan hantidan dawladda ama guryaha ahaato ama gaadiidka socdaha ahaato kuwa badda maray maraakiibta iyo kuwa cirka maray diyaaradaha iyo kuwa dhulka socdo baabuurtaba iyo haddii mashiino kale iyo qalab kale dawlad weyn oo jirto intaas oo agaba lahayd marka intii oo dhanna waxay gacanta u galeen shakhsiyaad private oo gaar ah marka waxaan isleenahay intii nool oo ilaahay fahansiiyay oo ilaahay maanta sugay oo caafimaad qaba waxaan rajaynaynaa inay wadadaas raacaan oo furay walaalkeen Cabdiraxmaan oo hantida dawladda ay ku soo celiyaan dawlad dhexe oo ummadii ka dhaxeeda ayaa maanta jirta hal qasnada jirta single treasury account dawladda federaalka Soomaaliya hal qasnad oo lagu shubaa lacagteeda maanta marka haddii awlad dhahay dawladnimada waa jilicsan tahay iyo ma shaqeynaysa iyo ama aaminaad darro ay jirtay maanta taasu ma jirto alxamdulillah dawladdeena wax badan waa run waa ka dhiman yihiin laakiin meel fiican ay joogtaa marka waxaan rajaynaynaa in hantida la iska soo celiyo dadkuna ay u naxaan naftooda iyo aaqiradooda iyo ehelkoodaba walaalkeenna aad u mahadsan yahay runtii sharafeena ii tahay inaan xildhibaankiisa ah qofka sunnadaas bilaabay inaan xildhibaankiisa ahna waa wax maaragtay communitygeena si gaar ah ugu soo celinaysa sharaf gaara ummadda Soomaaliyeedna u soo celinaysa xildhibaan dabcan maadaama arintan ay tahay wax ugub ah qof in meel oo dad ay joogaan oo fagaaraha ku soo celiyo dad badan baa wali gacantooda ugu jirta hantida qaranka kuwa baa laga yaabaa inay u arkaan fursad inay dabcan ay ka faa'iideystaan xilka hayaan ama hantida hayaan kuwaasi maxaa baa qudraysa waa maasan tahay runtii qodob su'aal muhiim waaye maanta in qof oo hantidii dawladda soo celiyo dhowr iyo 30 sano kadib qofuna maanta oo runtii u baxsanayo oo u biratumanayo in hantidii dalka ummadda ka dhaxeeyay positional powerka awoodda xilka uu markaas hayo inta si qaldan u isticmaalo waxaan rabnaa inay cibro u noqdaan inay maanta qaataan hantidii dadweynaha ka dhaxeysay dawladda Soomaaliyeed magaceeda lagu keenay ama canshuurta masaakiinta laga aruuriyay lagu iibiyay mas'uuliyadiisa markay ku soo gasho waliba waxa ugu daran ayaantan waa gaadiid xil baa lagu dhiibayaa gaadiid baa lagu siinayaa xafiiskaas uu leeyahay biri qofkii uu la tagayaa waliba mas'uuliyiin dawladda waxa laga yaabaa xilal sarsare ka soo qabtay iyo mid dhaxaba iyo mid hoosaba inay si ku takrifala ku talagala u qaataan walaalayaalow xilli maanta waxaan joognaa hantidii horamaba diiwaan gashanay midaan waa diiwaan gashanta waa la ogyahay in aan tusaale ku qaadano oo hantidaas aan ka leexan iyo dhulkan lagu waashay oo isaguna sida qaabta daran loo qaadan iyo hantida kale ama lacagta leh ama maaragtay hantida kale duwan lana waxaan rajaynayaa war kuwii hadda u biratumanayna inay halka ku joogsadaan oo hantida dawladda loo nabadgeliyana waa rajaynayaa waa maasantiin